iyadoo la fulinayo ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa abaalmarinta dhalinyarada ka soo baxda maleeshiyadka Al-Shabaab ee hore loo qalday ayaa maanta dawladda Soomaaliya waxay abaalmarino lacageed ay guddoonsisay laba xubnood oo hore uga soo goostay kooxda Al-Shabaab waxaana ay isku soo dhiibeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 14 Oktoobar abaalmarinta koowaad ee dawladda Soomaaliya kaga timid xaraba inay naga guddoonto taliyaha guutada 14 Oktoobar oo abaalmarintaasi lacageed ku guddoonsiyay ayaa wuxuu sheegay inay qayb ka tahay fulinta ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhalinyaradii isa soo dhiibtay ee ka timid ururka Al-Shabaab oo ka mid yahay Ibrahim iyo Maxamed in maanta laga jawaabo baaqi madaxweynaha oo ahaa cidii isa soo dhiibta waxaan u sameynaynaa nolol waxaana sii doonaa abaalmarin tiyo maanta arintaas maanta taagan oo rabo in la fuliyo in muddaha nala joogaan nolol fiicanna way ku jiraan waxa ka dhimanaaday in la siiyo xuquuqaadkii madaxweynaha oo ballan qaaday ayadaan rabnaa maanta inaan guddoonsiino si ay noloshoodii wax uga bedelmaan maadaama in muddo ah ay la shaqeynayeen dad cadow ah ee ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku hayay naftooda iyo maalkooda xaaleystay ayagana ilaahay garansiiyay inay ka soo baxaan kuna soo biiraan dawladda Soomaaliyeed aadan deerow iyo horjooga Ibrahim Maxamed oo iyagu ahaa xubno hore uga tirsanaa Al-Shabaab kana soo goostay ayaa ka mahad celiyay ballanqaadkii loo fuliyay iyagoo xusay inay dareemayaan kalsooni iyo jawi farxadeed si sharaf iyo wanaag dawladda inaga soo dhaweysay oo maanta kamid ah waa naga soo dhaweeyeen abaalmarada waa naga sayaan alxamdulillah ilaah baa maxaad iska leeyahay markii hore waxba ma nagsiin jireen wadan baa qantum ku jirnay unakan masqaadin baa la qalday dad masqaadin la qalday ay jirin wax dhibaato ah shacab ah waas dhibaato la geysanayeen dhibaatadaas aan ku soo baxnay arintaas alxamdulillah dawladda iyo madaxweynaha qaasatan madaxweynaha si fiican baa oo maanta abaalmarin baa nini siiyay si fiican baa naga soo dhaweysay dawladdan qaasatan madaxweyne oo waxa naga siiyeen oo lacag baa naga siiyay oo waxa muslimiinta oo dhalinyarada masqaadis la qaldeen inay isku soo dhiibaan dawladda isku soo dhiibaan sidii unaga nagu dhaweeyaan sharaf iyo wanaag nagu dhaweeyaan waxa tusaale u ah inay dawladda isku soo biiraan oo sharaf iyo wanaag inay nala dhaweeyo ما شاء الله ما أد بعد دولة النسود دويستي ما دولة أد بعد النسود دويستي شرف إموناغا نيجوسود دويستان إن شاء الله مثل لبات وتشباب سجال سنة بقى كجرني سجال كي سنة أي ليش غير جرني ميل بدن أي كود قال مرني أي دولة الصومالية ونجا وواجس أي كجرني الحمد لله إلهي بمحط إسكله أيوه مركز قلط أو شعبك ويناغ أو صحن أو ضد مساكين أو قف مساكين أو يلينكيس كدنتي أو الماء أغون أيوه قعنت كواسطو أو لقرعها أيوه كأركي labadan xubnood ayaa dhawaan isku soo dhiibay guutada 14 Oktoobar waxaana ay kamid ahaayeen maleeshiyadka ka dagaalamay jiray deegaano hoostaga magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana tan ay qayb ka tahay dhalinyaro badan oo hore loo qalday isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho